waxa ka soconaya magaalada Makele ee caasimadda gobolka Tigrayga waa wax dad badan oo Itoobiyaan ah fajac iyo amakaag iyo rajabeel badan ku riday dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda ka fikireysay rajabeel ku riday gobolka Tigrayga waxaad arkaysaa xoogagga TPLF oo isu keenaya kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo ku sheegeen inuu yihiin maxaabiis ay ka qabteen ciidamada dawladda ama xoogagga dagaalka kula jira TPLF dawladda iyo xulafadooda la socota Tigraygu maxaabiista ay soo bandhigayaan wax ma aha aqliga saliimka marnana oo arintaasi ku qiyaasi kara inay yihiin maxaabiis hase yeeshee waxaad moodaa waxa ka dhacaya gobolka Tigrayga ama TPLF abaabulka ay wadaan ama ay waxa ay qorshaha ay dagaalkan ay u dajiyeen inuu yahay wax rajabeel badan ku ridaya dad badan oo Itoobiyaan ah Itoobiya meesha ay ku socoto cid saadaalin karta hadda saacadan aynu joogno wax qiyaasteeda garan kara male maxaa yeelay dagaal waxa soconaya muddo dheer qaatay kumanaan kun oo qof ku dhimatay malaayiin ba ku barakacday haddana waxaad moodaa dagaalka inay mar kale loo sacabatumayo xoogga TPLF waxay jeedaa magaalada Makele caasimadda gobolka Tigrayga wax ay ku sheegeen maxaabiis ay soo bandhigayaan oo sida xoolaha la kaxaynayo dadka Itoobiyaanka ama dadka inta badan dhalinyarada mustaqbalka iyo future-ka wanaagsan ka fikiraysa markay waxaasi arkaan maxay dareemayaan xaaladda dalka Itoobiya ma aha mid la qiyaasi karo wada dalka Itoobiya waa mid uu caalamku aad ula yaabay aadna ula fajacay ma aha mid caalamka ka gadmaysa dagaalada ka soconaya hadda dalka Itoobiya markaad fiiriso marba marka ka dambaysa xaaladdu way ka sii daraysaa cirka ay isku sii shareeraysaa xoogagga Tigrayga guulay sheeganayaan dawladuna guulo badan bay sheeganaysaa hase yeeshee meeshaasi guulma taalo oo xoogagga Tigrayga dhalinyarada ayar bay dabka ku shideen dawladuna dhalinyaro yar bay dabka ku shiday laba wiil oo Itoobiyaan ah meesha ku wada dhimanaya waxa suuq bid'aadantinimaki ugu xumaa ayaana ka soconaya dalka Itoobiya tusaale yar baan ku siinayaa xoogagga TPLF waxay sheegeen inay ka dagaalamayaan gobolka Axmaarada deegaanada ugu ballaaran ay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ay go'doon galiyeen hase yeeshee halkaasi waxa ka dhacaya warbaahinta inteeda badan aad buu uga qarsoon yahay dawladda Itoobiya waxa la sheegay ugu yaraan 30 kun oo askari inay u qorshaysay dagaalka ka soconaya World kali ah magaalada World istiraatiijiga 30 kun oo askari baa laga dagaalgeliyay xoogagga Tigrayga waxay soo dagaalgeliyeen intaas oo kale inta dhimatay waa cadad wala xisaab sidoo kale dawladda Itoobiya marnana kamayna fikirin dagaalka khasaaraha ka dhalanaya ama dhalinyarada ku dhimanaysa ee Itoobiyaanka nooca doonimaadaan Tigrayga ka soo jeedaan Itoobiyada kale ka soo jeedaan dawladda Dr. Abiy Ahmed waxba oogama degana xal laga gaaro dagaalka waqooyiga Itoobiya waxa la sheegay Tigraygu in ay soo dagaalgelin rabaan ugu yaraan 30 kun oo maxaabiisa oo lagu hayo magaalada Makele oo la sheegay in dawladda Itoobiya ciidamadeed hore ay ahaayeen haddana maskaxdii iyo memory hore laga bedelay ku kalena lagu shubayo abina sidoo kale waxay ciidamadii soo bandhigeen maxaabiis aad u tiro badan oo ku sheegeen in ay yihiin ciidamada Tigrayga ee dagaalka ku jira haddana dagaalku mar kale in loo sii dabshubayo wallahi xaaladda Itoobiya hadii dadka aqlo saaxiibka xaaladda Itoobiya meel hadda waqtigan isla xaadirkan lagu qiyaasi kara ama meel ay qolo guuleysan doonto xaaladda Allahu a'lam marba marka ka dambaysa xaaladdu waxa soo yeedhaysa qayladaan aad u culus oo marba marka ka dambaysa ka sii daraysa hadda maanta xoogagga Tigrayga waxa la sheegay in dib looga riixay Adigreed oo ah magaalo istiraatiiji dhawaan ay qabsadeen xoogagga Tigrayga sidoo kale Sokeeta deegaano ku hareeraysan ayaa iyadana laga riixay xoogagga Tigrayga inkasta oo wali dagaalka xoogiisu uu ka soconayo gobolada loo yaqaan Wollo iyo Wolkeed ayadoo gudaha deegaanada Axmaarada way magaalooyinkaas oo dhan deegaanka Axmaarada way waxa ka soconaya dagaalo aad u culus oo marba marka ka dambaysa ka sii daraya khasaaraha iyo dhimashadu ay aad u badan tahay sidoo kale xoogagga Tigrayga waxay sheeganayaan guulo waaweyn inay ka gaareen Humeira waa magaalo sida la wada ogyahay magaalo istiraatiiji waa magaalo u dhaxaysa saddex dal waa dalalka Itoobiya Eritrea iyo Suudaan ayaa u dhaxaysa halkaas waxa ka dhacaya dagaalo aad u culus oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday hadii xoogagga Tigrayga hadda waxay sheegayaan inay halkaas magaalada ay qarka u saareen inay qabsadaan ay aad ugu badan tahay haddii qabsadaan Tigraygu halkaas khasaaro inta uu ka sii badnaanaya dawladda Dr. Abiy Ahmed waxay isku dayday magaaladaas qabsadaan Tigray inay awoodeeda ugu dambaysa isticmaasho ayadoo isticmaalaysa ciidamada Itoobiya hubka ugu dambeeyay leeyihiin halkaas khasaaraha ka badan ba ka dhalan sidoo kale dawladda Itoobiya waxay wada abaabulkii ugu cuslaa
oo xogaga Tigrayga la rabo gibi ahaanba in la waayo shakhsi ka dhaqaaqay waqooyiga dalka Ethiopia oo dawladda Ethiopia iyadu ay tagto dadka ay geysana ay noqdaan dadka waqooyiga Ethiopia ku noolaada marka ka dambeysana xaaladdu way ka sii daraysaa xaaladda Ethiopia cid hadda saacadan saadaalin karta male waxa loo yaqaan beesha caalamka ishtirum uga fiirsanayaan hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa mid kali ee la gudboon waxay tahay si dalka Ethiopia xaaladdiisa loo dejiyo ama Ethiopia la isku wada keena ama colaadda inta ay goor tahay la daba qabto in uu xilka ka daga umbay maslaxa Ethiopia noqon kartaa ana fikradeyda dalka Ethiopia adii haduu xilka ka dago waxaan qabaa in la qaboojin karo haddana wax laga qaban karo la daba qaban karo Ethiopia ay sii jiri karto inkastoo Ethiopiaanku hadda intooda badan ba intay wax fahmeen ama siyaasad fahmeen ama wax barteen ama la xukumi karin oo qoomiyad kasta aaminsantahay in ayadu tahay qoomiyadda libaaxa Ethiopia ayadu tahay aaminsantahay haba ugu awood badnaan Tigrayga Ahmaarada iyo Oromada oo qoomiyadaha sida weyn iskugu haya xaaladda guud ee dalka Ethiopia tusaale kale gobolka Oromia waxa ka dhacay dagaal aad u xalaad jamhadda oo maanta waxay sheegtay ugu yaraan 3 gobol oo deegaanka Oromada inay ku qaaday dagaal aad u culus inay u geysatay khasaare abid ugu cusla ciidamada dawladda iyo huwantooda xoogga waxay sheegeen gobolka Walega Shewa iyo Gujis inay ku qaadeen weeraradii hore weerar ka culus ciidamadoodu inay ka gaareen guulo inay weligood ka gaareen bay sheegeen oo waxay sheegtay inay ciidankoodu burburiyeen tiknikadii ugu badneed ee ciidamada dawladda federaalka ee ka dhaqaaqay ama howlgallada military ka waday gobolka Oromia dawladda Ethiopia ma aragto gobolka Oromia wax ka dhacay ama dagaalada ka soconaya ama burburka khasaareed iyo hanti iyo dhalinyarada aad ka u tira badan ee dhimanaysa daily ama maalinna u dhimanaysa dawladda Ethiopia maarta hase yeeshee ra'iisul Ethiopia waxaa moodaa oo kali ah inuu hadda ku mashquulsan yahay xogaga Tigrayga sidoo kale warbaahinta dalka Suudaan waxay sheegtay in ay jiraan saraakiil ka tirsan militariga dalka Ethiopia oo isku soo dhiibay ciidamada dalka Suudaan ee ku sugan xuduudda dalalka Suudaan iyo Ethiopia askartaasi waxay saraakiishaasi aandho waxay wateen askar aad u tira badan dalka Suudaan bay weydiisteen baan mangaliyo markay kan xaaladda dalka Ethiopia oo ahaan meel bila aadmi ku noolaan karo oo tahay goob colaadeed oo isdaba marayaan gaariyaha ka meedka wada iyo ka sahayda wada iyo ka gargaarka wada iyo ka gurmadka wada ay wadooyinka waaweyn ee dalka Ethiopia intaas oo kali ah ay ka muuqato hase yeeshee nolol bulsho ee Ethiopia gudaheeda ka muuqdeen marka dagaalku Ethiopia uu daba dheeraaday xaaladuna aad bay u kulushay marka ka dambeysana way ka sii daraysaa xaaladda Ethiopia wax la saadaalin kara maaha Tigraygu hadda waxaad moodaa inay soo dagaalgelinayaan maxaabiis aad u tira badan dhalinyaro aad tira badan dabka ku shubayaan dawladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed uu go'ay wax talaa inay nibad moodaa dagaalkana ayada ay si weyn ugu saxbatumayso marka xaalka Ethiopia